wuxuu iga codsaday wasiirkii inaan imaado aan idin kala soo qayb galo shirkan aad ugu yeerteen shirweynaha ansixinta manhajka qaranka Soomaaliyeed marka waxaan is weydiiyay su'aal ah muhiimadda ay waxbarashadu ku fadhido waxaan markaa rabaa inaan idin sheego ugu horeyntii idinkoo aad u mahadsan maadan isugu imaanina shirweyne lagu ansixinayo manhaj waxaad isugu timaadeen inaad qotomisaan ama udubkaad u dhigtaan fikirkii dalka Soomaaliyeed dib loogu hagaajin lahaa waxaad isugu timaadeen inaad idinku su'aal is weydiisaan annagana weydiisaan su'aashaas oo ah dad noocee ah ayaan rabnaa inaan soo saarno mustaqbalka adduunyadu waxay maraysaa heer la isweydiiyo su'aalo ah 10 sano oo soo socda dadka aan rabno noocee ayay yihiin aqoon noocee ayay leeyihiin maxaan rabnaa inay dalka ku soo kordhiyaan haddii qof idin kamida uu arko waxbarashadu inay tahay ganacsi waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka burburinayaan haddii qof idin kamida uu u maleeyo in dalkan dhibaatada haysata looga saari karo in wasiir la magacaabo in wasaaradda maaliyaddu ay dhisan tahay in ra'iisul wasaare uu joogo waxaan idinka codsanahay inaad dib fikirtaan dalkan dhibka waxaa looga saari karaa kaliya in lagu dadaalo ubadkiisa waxbarashada macnaheedu waxay tahay in la barbaariyo ubadkeen su'aashaan is weydiinayna waxay tahay sidee ayaan rabnaa ubadkeen inaan u barbaarin maxaan rabnaa inaan barno inay dhaqan wanaagsan leeyihiin inay diin wanaagsan leeyihiin inay iimaan leeyihiin laakiin maxaan rabnaa inay bartaan haddii aad leedahay warshad ama haddii aad leedahay ganacsi oo qof shaqaalaysiinayso waxaad ka eegaysaa qofkaas aad shaqaalaysiinaysid saddex wax saddexda wax oo ka eegaysid qofkaas waxay tahay kow dhaqankiisa aasaasiga ah oo aan laga bedeli karin ee uu qofkaasu leeyahay waa maxay tan kalood ka eegaysa waxay tahay aqoonta ama xirfadda uu leeyahay tan saddexaad ood ka eegaysa waxay tahay dhiirigelin ilaa noocee ayuu qofkaas leeyahay siduu buu ugu gubanayaa shaqada uu rabo inuu qabto haddii qofka aad shaqaalaysiiso uu yara caajisan yahay waad hagaajin kartaa mushaarka aad u kordhin kartaa shaqadaad dalacsiin kartaa si uu u farxo hadduu soo daahi jiray waxaa laga yaabaa maadaama uu madax noqday ama lacagta u badatay inuu soo hormaro haddii qofka aad shaqada siisay aanu garanayn sida kombiyuutarka loogu shaqeeyo ama sidii manhajka loo qoro waxaad u diri kartaa seminar uu ku soo barto uu soo baranaya uu shaqeynaya haddii laakiin aasaaska qofka dhaqankiisa uu ka xun yahay oo macnaheedu tahay waxaan la bedeli karin eeg maalinta aad sanad jirtay ilaa aad 15 sano ka gaartay wixii lagugu soo barbaariyay si walba haddii xoog loo geliyo lama bedeli karo waa inaad fikirtaan marka waa inaad ka fikirtaan dalku meesha uu ka dhabar jabay waxay tahay haddii aad rabtid qofka raba inuu dalka ka shaqeeyo inaad ka bedesho xirfadiisa waa ka bedeli kartaa haddii aad rabtid shacabka Soomaaliyeed inaad hanuunin iyo kicin ku kiciso waa kicin karnaa laakiin haddii aasaaska bulshadu uu khaldan yahay waxaa dhib noqonaysaa in xal la helo ragga iyo dumarka halkan fadhiya carruurta soo koraysa Soomaaliyeed waxay xaq idinkugu leeyihiin inaad siisaan dal aan kan ahayn waxay xaq noogu leeyihiin inaan gacanta u gelino kow dal nabad ah
دلان دين لقول هين دلان ليس حبدينين دلان قبيلي قبيلة وكلا قرنين دل دت كيس الدنيا ده مركا مرايان شرفية كرامة لقول سودوي سؤال شو واحد هاي ما هيسان أنا قلنا ما هي ندلكي وأنا سويدينا إن أمريكا سدابان واجب كأنه وجودنا أنا قلنا نكب حناي أما نكب حربنا شيخ بشير شروع رجع لكم فديه ونجيده وحلوله حساب تما يا مستقبلك محاط وقتكتين بالشدة الصومالية وحنا لو يدينا سؤال وقت جيني محاطكم بحسن سيدا استرادت قفل بو أنك نجمده أو أنك وقت جينا جوكتي أما قيب كقادة دجال كان صومرني أما قيب كقادة waxaad qayb ka tahay jiilka bulshada Soomaaliyeed ee ka soo bixi waayay waajibkoodii waxaan aniga iyo adigu qayb ka nahay jiilkii bulshada Soomaaliyeed ee ku saakhiday inay dadka ka dambeeya u gudbiyaan waxay xaq u lahaayeen sidaas daraadeed sida kaliya oo aan dibkaas uga bixi karna waxay tahay si aanay kuwa naga dambeeya u saakhidin maxaan u qaban karnaa inaan isweydiino su'aalaha ah maxaa isu keena kara waxa isu keena kara qof walba in la siiyo waxbarasho wax ku taraysa mustaqbalka waxbarasho u qabanaysa waxa Ilaahay uu siiyo bil aadanka ugu muhiimsan waa maxay inaad naftaada iyo maskaxdaada xor u tahay waxbarasho loogu talagalay qofka maskaxdiisa in la xoreeyo haddii aan gobollo kala nahay ugu yaraan waa isku aqbali karnaa in caruurteena ay waxbarasho fiican helaan ma qof Soomaaliyeed oo aabbihii hooyaha ayaa diidaysa in wiilkiisa ama gabadhiisa iskool fiican loo geliyo haddii laakiin aan iskuulo yar meel walba ka samayno tabeelooyin aan ku dhajino jaamacado aan ka soo saarno ummadeena shaqada markay bilaabaanna aanay shaqayn karin sababtoo ah waxbarasho beenaha ayaan soo gelinay mar kale waxay tahay anagoo duminayna ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa in laga foojignaada marka midda labaad waa inaan isku waafaqnaa hal mid adduunyada sidaan ula tartami karnaa adduunyada waxaan kula tartami karnaa kaliya waxbarasho waxaan kula tartami karnaa adduunyada inaan fahmno si aan ula tartanno inaan fahmnay u baahan tahay si aan u fahmno inaan leenahay aqoonta aan ku fahmi lahayn si aan u helno waxaan u baahannahay inaan leenahay waxbarasho tayo leh albaabka ugu horeeyo laga galo waxbarashada tayada leh waa in la helaa manhaj caruurta Soomaaliyeed kii ka soo baxa iskuul la og yahay inuu dalka wax ku tarayo kii ka soo baxa iskuul la og yahay inuu Soomaalinimada ka jecel yahay qabyaaladda kii ka soo baxa inuu og yahay inay muqaddas tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed kii ka soo baxa iskuulka inuu garanayo in la ixtiraamo dadka ka waaweyn iyo dumarka Soomaaliyeed kii ka soo baxa iskuulkaasi inuu og yahay inay waajib tahay inuu ka shaqeeyo Soomaaliyadii uu u gudbin lahaa dadka ka dambeeya isaga kii ka soo baxay iskuul inuu garanayo in waajib uu ka saaran yahay dib u dhiska dalkiisa iyo dadkiisa marka sidee baan rabnaa inaan u dhisno Soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogno waxaan u dhisi karnaa kaliya maadaama annagu aan joognay jiilkii dumiye aan qayb ka ahayn inaan soo saarno kuwa dumista ku bedelaya dhisme kuwa nacaybka ku bedelaya isjacayl kuwa jaahilnimada ku bedelaya aqoon kuwa dulqaad la'aanta ku bedelaya isu dulqaad sidaas daraadeed waxaa muhiim ah
إن ماشان عن السجون نمد عن كلي أهان شر السجون يمد ولا كلا تبو إن أنك فكرنا ماشان إنا يتهاي ماشي بالشدة الصومالية لجوه جامل لها ماشان إنا يتهاي ماشي أمد الصومالية اللي سجكين لها دل كانوا وأنقنا هاي وبربرة رجدي إنه waxay ku xiran tahay ubadkeena mustaqbalka waxa kale ku xiran tahay rajadeenu kuweenan halkan jooga oo hadda taagan inaan toobad keeno waxay ku xiran tahay inaan aqbalno inaan saaxidno waxay ku xiran tahay inaan aqbalno inaan dadka anagu kala qaybino waxay ku xiran tahay inaan aqbalno halkan markaan fadhino ka baxno qolalkaas galno inaan qabyaalad kaliya ka sheekeyno waxay ku xiran tahay inaan runta isu sheegno oo aan aqbalno dan gaar ah iyo dan qabiil iyo dan gobol inaan ka hormarino danta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed marka ugu dambeysana meel walbo martid qof Soomaaliya tahay waxa maalin walba aan ku ciyaarayna waa Soomaalinimada waxa muhiima inaan dhaqankeena wax ka bedelno waxaan la qabsanay inaan aqbalno waxaan caadi ahayn waxaan la qabsanay inaan aragno xaq darro aan ka aamusno waxaan la qabsanay in qof bil aadan oo Soomaaliya horteena lagu dilo waan sida xoolaha geesaha u dhaqaaqno waxaan la qabsanay inaan u fiirsano oo tusaale u noqono in la baabiyo hantida iyo qaranka Soomaaliya waxaan la qabsanay inaan halkan wada fadhino oo aan raadiyaasha dhageysano oo niraahdo dawladii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii maxay sheegaan maya dawladii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii waa idinka waa inaad xaqiina u istaagtaan waa inaadan aqbalinina dalka in la dumiyo waa inaad aqbashaan inaad intaad gacmaha isqabsataan aad dhihi kartaan ma aqbalayno in dad annaga hormuudkeena aan laha ay dalkan dumiyaan waa inay culimadu is abaabushaa waa in dumarku is abaabulaan waa in dhalinyaradu is abaabushaa waa in bulshada rayidku is abaabushaa laakiin haddii culimadii dhexdeedii ay ku kala qaybsan tahay yaa ah noocee haddii bulshada rayidka ay ku kala qaybsan tahay yaa ah noocee haddii qabyaaladii iyo isqolaysigii ay ka weynaatay ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada sidee baad rabtaan dalkan inuu hore u maro waxaan rabaa maanta inaad idin sheego haddii aad sugaysaan in wasiiro iyo ra'iisul wasaare la magacaabay ay dalkan sida hore ka bedelaan ma ka bedeli karaan ana idin sheegay sababtoo ah nidaamka wasiir walba iyo ra'iisul wasaare walba iyo madaxweyne walba u imaanaya ayaa wuxuu yahay nidaam aad u adag marka waxa dhacaysa su'aalaha ma nidaamka bedeli doona madaxda timaada mase madaxda nidaamka bedeli doonta oo awood u yeelan doonta inay shacabka Soomaaliyeed hogaamiso haddii dadka Soomaaliyeed ay aqbalaan wixii ay aqbali jireen haddii aad fariisataan oo aad fiirsataan inaad aqbashaan wax aan dalkan caadiga ka ahayn oo ah sababtaan u soo saaqidnay haddii aadan su'aalo adag isweydiinina haddii aadan dhihinina xuquuq baan rabnaa haddaanay ganacsatadu dhihin canshuurta waa bixinaynaa laakiin waxaan rabnaa xuquuqdeena 1 iyo 2 iyo 3 haddaanay culimadu ummadda jihayn haddaanay dhalinyaradu soo istaagin aanay dhihin dalkan annaga iskale haddaanay haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabarka iyagoo hal ku midaysan ma in haweenka Soomaaliyeed ay 3 iyo 4 u kala qaybsamaan iyagoo hal ku midaysan أنا شعبك Soomaaliyeed hormuud u noqon amaanta idin sheegaya hal qof inaad eedaan ma ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay حتى هدي أي كلفيسو حتى هدي أي كلفيسو رون شيء إن عن شقدي ذكوا ديار بانوا
qof walba Soomaaliyeed oo maqlaysa iyo idinkaba waxaan idin sheegayaa haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto kaligay kama qaban karo madaxweyne Farwaajina kama qaban karo haddii aad rabtaan dalkan wax in wax laga qabto waxaan idinka codsanayaa inaad istaagtaan كو إن أتقبل لودان عرورت الصوماليات إن أدود الجسان منهج كيلو قبار لهاي إذنكو صومالي سكسور دويناي لابو إن أتكل جينس أبابوشان ودستاكتان والله حساب تنتان دولة الصومالية سدح إن أتسؤالي سوي ديسان مدد بان نهاي لقو يقاني كرتي يا شرف ومقعود اللي هذا الصومالي وتاريخ ذا أفريقيا الدنيا اللي جاي يقاني والشرف لها مسوحان نقولنا إن نرادو هبل حبت بالغو دفتي هبل باكو دفتي الله ونحرسته هبل كو دفتنا وحبل لغا ما قبان كرو وايه هبل يا هبل با قيلين دون بس إن هذا ربطان دال كان إنه كساد هدي أي جوابته ما يتهي هدي دمير أي نجو هرتي هدي هذا ربطان الروتين إن هذا هو تكتان هدي عاد ربطان سنة إن أدوسوا على لسان كرامات دي ومد الصوماليات لما سوي كربريتو ما أنت وين أدستاكتان ما أنت وين أدسبابوشان ما أنت وين أم بلاونا سيدا أنو الشقين لهين جدد كمقالة سيدا أنو نضيف صن لهين قريه هند نجد دومي سيدا أنو لسان لهين دتك قلبي جوده هو سد دومي سيدا أنو تكعن لهين ما أنت وأنا إلهي كوضع عبسنا وقبيل كدنا عسكرنا مانتي وأنا وضع أقبلنا مصوماسق يلالوش كينو دلكن دمي مانتي وأنا نقبلنا إن أنا الدنيا نو إيمان إن دلكن نودست قف والبعو صوماليا ضو مغلاي وعن ربع مانتي إن أنا أشيغو إن أنا هرتي نكقرو إن أنا أنو الديار وهي غيبت هذا إن أنا قبط سؤال اللي سويدين وحي تامرك مجران شعب صوماليات وديارو هدلكن إن يدبوا حريان هداد ديار وتهين أنا قلنا ديارنا والسلام عليكم ورحمة الله